taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha gobolada galbeedka Soomaaliland Kabtan Maxamed Watar iyo saraakiisha ciidamada ilaalada xeebaha goboladaasi ayaa socdaal indhayn ku soo maray jasiiradda Sacaadadiin iyo Ceedaad ee ka tirsan xeebaha degmada Saylac ee gobolka Salel wuxuuna dhagax dhigay saldhig cusub ay ku yeelanayaan ciidamada ilaalada jasiiradda Sacaadadiin ee ka tirsan degmada Saylac runtii waxa weeye نبغى واحد بدنا نكون جنينا أو أي كميديين كلي وف مسؤول هدينا الله كيرو الله يرحمه كشقة وقرنا يوم استنس كيرا وقرنا يوم استنس كيرا ميلاد هذا يوحي الله ميلاد هذا قص كريني سمر كار كرينو كمير كسمينو هذا وحنا نقول يا كذا جري تاجنا هيك سيرتي عيبات تاجنا هيك إن شاء الله ويكلنا عبد الله يري وين نوسف كبكبوجو وحنا دورينا عبد الله يري إلا بحيته نوسف كبكبوجو كمير كنا بلارني يا إنجريان بتوجه هذا وقت كمير كنا طلبات هوية جزيرة وعيبات جزيرة وهم قسم يسنين هالبيش في الله يري وصلنا وين قابي هاي طوبة رمضان كلنا هنا نسيب قابي ودوري جزيرة هكذا أي كم يجي واحد بسوا كبكبين يا hawsheena aynu sii laba jibaaran xawaari hore aynu ku soconaynay debel baynu ka sii diganaynaa sidaas ay noo ballana waa markii ugu horeysay ee taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha gobolada galbeedka Soomaaliland uu socdaal ku soo maray saldhigyo ku yaala galbeedka ayaa la Saciid Cabdi SBC TV magaalada Boorama.